ma ogtahay in fayras halis ah uu ka dilaacay markab dalxiis dhawaan uuna sababay wadamo badan inay soo saaraan digniin degdeg ah wax walba waxay ka bilaabmeen meel u dhow cidhifka koonfureed Argentina halkaas oo markab dalxiis oo lagu magacaabo MV Honda uu safarkiisa ka bilaabay biyaha qabow ee badweynta koonfurta Atlantic isagoo ay saarnaayeen in ka badan 150 rakaab ah waxaana ku sii jeeday Spain bilowgii wax walba waxay u muuqdeen kuwo caadi ah si kastaba haatee markii uu markabku marayay koonfurta jasiiradaha Georgia mid ka mid ah rakaabkii ayaa u dhintay xanuun shaqaalihii markabka waxay arrintaas u qaateen xaalad caafimaad oo caadi ah oo ka dhacda badda balse taasi waxay ahayd bilowga dhibaatada wax yar kadib rakaab kale ayaa bilaabay inay muujiyaan calaamado la mid ah kuwii hore xumad tabardarri iyo dhibaatooyin neefsashada dhankeeda ka imaanaya halkaas ay xaaladdu ka sii dartay saraakiishii caafimaadka ayaa bilaabay baaritaan waxayna ogaadeen in markabku uu ku jiro fayras khatar ah oo la mid ah coronavirus fayraskaas waxa lagu aqoonsaday inuu yahay hantavirus kaas oo inta badan ay gudbiyaan jiirka iyo xayawaanka yaryar ee la midka ah markii markabku uu gaaray Saint Helena xaaskii qofkii dhintay ayaa xaaladeedu aad uga sii dartay waxaana loo qaaday South Africa halkaas oo ay iyaduna ku geeriyootay iyadoo cabsi xooggan ay ku sii kordhaysay markabka dhexdiisa markabku waxa uu sii watay safarkiisii markii uu gaaray Cape Verde rakaabkii saddexaad ayaa isna u dhintay taas oo cabsi weyn ku abuurtay rakaabka isla markaana xaaladda ka dhigtay mid dunida oo dhan laga hadal hayo hadda markabku waxa uu ku xidhan yahay dekada Baruta de Garandia halkaas oo rakaabka si tartiib ah looga dejinayo laguna kala saarayo jinsiyadahooda si caafimaad ahaan loola socdo mar rabtaa inaad baratid xirfadaha online-ka lagaga shaqaysto income iyo dhaqaale inaad ka samaysid online-ka haddii aad u baahan tahay inaad barato xirfadaha AI-da freelancing affiliate marketing cryptocurrency iyo digital products sida loo sameeyo online-kana loogu iibiyo iyo xirfadda e-commerce-ga waxaan ku haynaa ebook si tafatiran kugu sharxaya kuna baraya kuna siinaya siraha xirfadahaas online-ka loogaga shaqaysto kaliya WhatsApp-ka iga soo weydii buugaagtaas halkaas ayaana kugu soo diri doonaa igala soo hadal nambarka WhatsApp-ka aan dhigi doono commentiga